haddii Israa'iil iyo Turkigu ay saaka dagaal ba'an uu ka dhex qarxo oo aan waxba la iskula harinin yaa labadaas xukuumadood awood badan yaa adkaanaya waa maxay waxyaalaha mid walba ay ku fiican tahay ee midda kale baandhaynaysa oo natiijada ka soo bixi kartaa ay aad iyo aad markaas dadku ay ula yaabayaan waxaynu idiin soo diyaarinay haddaba culidooda military ayaan isbarbar dhigaynaa oo dhinacyo kala duwan ka eegaynaa tirada ciidamada hadday ahaan lahayd diyaaradaha ciidu aysan wadinin gantaalada kala duwan diyaaradaha dagaalka soo saarka hubka tiknolojiyadda casriga ah ayaynu isbarbar dhigaynaa waa haddii saaka labadan hogaamiye ay fooda isa saaraan qaybta u dambaysana waxaan kuu sheegi doonaa sabab Israa'iil aysan Turkiga u weerari doonin haddaba daawadayaal intaan u gudo gudbino marka hore intaan iga gudoomo disclaimer-kan yarka daruuri weeye ee nidaamka caalamka u shaqeeyana weeyaan taariikhdu waa 9 bisha 8 sanadka 2026 waa barnaamijkeennii subax wanaagsan Soomaali Maxamedey soo yaaca ku soo dhawow abka lacag dirista degdega ah ee TasaPay kani waa TasaPay lacag diris degdegsiinta damaanadiisa ammaano dadku wuxuu ku jeclaaday daacadnimada wanaagsan iyo doorku ka qaatay baahiyaha lacag isu dirista dalka iyo dibaddiisa haddii aad ku nooshahay UK ama Yurubta kale ee aad doonaysid inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaadaba TasaPay waa abka kuu fududaynaya inaad si degdeg ah u dirto lacagta aad rabto lacagtu waxay si toos isla markaba ugu dhacaysaa moobilkooda ama ban akoonkooda si degdeg ah ammaano ah oo kalsooni buuxda leh kala soo deg hadeerba Play applicationka lacag dirista degdega ah ee MyRemit muddaan sugayo maskaxda ku hayay maantaan helay meeshii aan rabay iyo ma dhaafaan lacagta lagu diro waana nidaamka lacag dirista degdega ah ee MyRemit waa nidaam casri ah oo aad lacagaha uga diri karto dhammaan gobollada Soomaaliya Ethiopia Kenya iyo bangiyada Soomaaliya bangiyada Ethiopia mobilada EFC Sahal Maycash iyo dhammaan nidaamyada mobilka ee lacagta lagu diro haddaba soo degso MyRemit app xawaalada MyRemit app ku dooro degdegsiimo adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees waxaa haddaba daawadayaal isku soo noqod wanaagsan aynu isha ku hayno haddaba muuqaaladan kala duwan ee aynu dulmari doono qaybna ka ah barnaamijkeenan saakeyaadka u kooban aynu isbarbar dhigayno Turkiga iyo waliba xukuumadda Israa'iil waa idin soo dhaweynayaa arrintan waxay daaran tahay codsi ka yimid bulshada Soomaaliyeed maadaama dagaal fara badan aad iyo aad dagaalka aad loo boonbooninayay waxa aynu haddaba eegaynaa marka hore culidooda military haddii aynu isku eegno markaad eegtid kategoriyada kala duwan ciidamada markaas hadda hubka qaadi kara ee heeganka ku jira Israa'iil iyo Turkiga markaan isbarbar dhigtid waa kaaf iyo kala dheeri weeye kaaf iyo kala dheeri weeye oo meel ay isaga soo dhawaan karaan malaha dhinaca tirada markaad eegtid Israa'iil 169 iyo 5,000 ayaa qoriga qaadi karta oo heegana 48,000 ayaad halkan ka hadlaysaa ayagu markiiba qoriga dafka 481,000 abigi badan 481,000 weeye ciidamada Turkiga ee heeganka ee haddii seerigu yeero tuutaa xiranayo dagaalka galaya qodobkaas meel ay dhig ciidamada kaydka marka la eego oo kaydka u ah marka Israa'iil iyo Turkiya ayaga laftigoodu aad ayay u kala duwan yihiin oo dhinacaas waxaad arkaysaa Israa'iil inay hogaaminayso ciidamada kaydka ah ciidamadan kaydka waxa la leeyahay ma aha kuwa kulligood hadda gudaha Israa'iil jooga waa dad baasaboorro qalaad wata oo dunida daafaheeda markaa ka imaanaya dhinaca budgetka marka aynu eegno dhaqaalaha sanadlaha ee ciidamada lagu bixiyo iskuma dhowa Turki ayaa hogaaminaysa 51.4 bilyan ayay Turkiga ciidamadooda sanadkii ku baxda 51.4 bilyan weeye milyan maaha milyan waa laga soo tegay halkan waa weynka weeye alaabtaana Israa'iilna 34.6 bilyan weeye oo halkaas Turkiga ayaa hogaaminaya waayahay
hoos haddii aad u soo degatid oo aynu eegno kategoriga kale aanu doonayno inaan isha marino ee culayska iyo miisaan kale waa ciidamada cirka weeyaan ciidamada cirka markaad eegtid Israa'iil ayaa halkan hogaaminaysa waxaadna garan kartaa sababta Erdogan uu u baadigoobayo markaas inuu mar un gacanta ku dhigo diyaaradda F-35ka ee Maraykanku uu sameeyo si arrintu ay barbardhac u noqoto waana sababta Netanyahu qayladhaanta u diray uu TV-yada uga hadlayaa uu qayladhaan u geeyay leeyahay Turkiga aan diyaaradda laga iibinin haddii kale waa isla sinaanayna marka at this point in time dhinaca difaaca dhinaca weerarka cirka Israa'iil ayaa hogaaminaysa arrintuna waxay tahay diyaaraddaas F-35 diyaaraddaas haddii uu Turkigu helo halkan ciyaartu barbardhac ayay noqonaysaa waana tii madaxweynaha dalka Maraykanku 5 wiik hor markuu joogay Ankara shirkii NATO uu kasoo qayb qaatay uu yiri cunaqabatayntii Turkiga saarnaydna waanu ka qaadnay diyaaradaha F-35ka latest generation waanu ka iibinaynaa Erdogan barkintiisa u dheer sababtuna waa soo jeedaa halkaan ayaanu ku ogaan doonaa waa yahay ciidamada markay timaado land force ciidamada dhulka markay timaado waa kaafiya kala dheeri Turkiga ayaa hogaaminaya Israa'iilna symbol number ayaa halkaan lagu dilayaa oo ah markaas tirada dadka Turkishka ah iyo Israa'iiliyiinta waa laba aan marnaba la isbarbar dhigi karaynin waa kan tiradii u dambeysay ee la qaaday 87.7 milyan ayaa lagu qiyaasay dadka Turkiga ah marka caalamka la eegana waa wadanka 18aad Israa'iilna 10 milyan ayaa lagu qiyaasay waana wadanka 93aad caalamka marka la eego meel aad u hooseysa ayay joogaan dhinaca tirada iskuma dhowa dhinaca dhulka markaad eegtid ayada laftigeedu waa kaaf iyo kala dheeri iyo waliba ciidamada special forces ka la yiraahdo waa tiro aad u kala fog waa ciidamada sida gaarka u tababaran commandoska aan dhahno weeyaan back to the topic again waa yahay dhinaca navyga markay noqoto ciidamada badda marka ay noqoto Turkiga ayaa marka arrinta hogaaminaya simply a large number of wuxuu haystaa oo advance a large number of wuxuu haystaa ciidamada badda ayuu haystaa oo Turkiga ayaa halkaa hogaaminaya marka ay noqoto missile air defense difaaca marka gantaalada difaaca marka la eego halkan Israa'iil ayaa iska leh for simple reason Israa'iil waxay haysataa layers oo isdul saaran 5 iyadoo ay leedahay oo difaac ayaa jira waxaana suurtagal ah in aynu ka hayno markaa muuqaal aynu jecelnahay in la wadaagno haddii alla yiraahdo oo markaas halkaas Israa'iil ayaa hogaaminaysa dhinacaas difaaca cirka marka ay noqoto waxaana loo aanaynayaa markaas agabka military ee markaas kala duwan ee Israa'iil ay haysato ee caynbacaynka iyo waliba Maraykanka iyo xulafadiisa oo difaacaya waa yahay hoos ayaanu u soo laadacnay military technology markaad eegtid dhinaca military technology Israa'iil is far more strong and advanced Israa'iil ayaa halkan hogaaminaysa laakiin waxa wax lagu qiyaasayaa intaas oo kaliya ma ahan markaad warbixintaas si fiican u dhageysatid waxa kuu soo baxaya dad badan wax fara badan oo aysan ogeyn waynu u tegi doonaa waa yahay combat significance and Israa'iil dagaalku hadduu qarxo waa taas oo significance dhinaca Israa'iil iska leh haatan waxaynu dhaadhacaynaa meelaha markaas xasaasiga ah ee na tusaysa labadan xukuumadood sida ay kala yihiin dagaalka militariga ee foolka haddii la iska hor yimaado Turkiga hogaaminaya maxaa yeelay Turkigu 3 jeer ayay ciidamadiisu ku labanlaamaan iyo difaaciisuba markaas Israa'iil oo ayaga Israa'iil iyo Turkiga halkaa Turkiga ayaa hogaaminaya great manpower ayuu leeyahay large dhula ayuu leeyahay large navy ayuu leeyahay global firepower-ka indexkooda sida lagu xusay sanadkan aynu ku guda jirno 2026 dhinaca teknolojiyada iyo air power-ka Israa'iil ayaa iska leh markay noqoto dhinaca teknolojiyada iyo air power-koona horey usoo marnayna Israa'iil ayaa iska leh daawada ila wadaag haddaad xogtan horey u haysay haddii wax kugu cusub ay jiraan iyo meesha ugu dambaysa markaanu gaarno ee budo iyo biyo loo baxo loo kala baxo sida ay markaa xaaladdu ay noqonayso waa yahay aynu ku soconno
إسرائيل waxay haysataa dhanka kale marka ay noqoto diyaaradaha dagaalka oo hore uga soo sheekeynay iyo waliba dhinaca xuraabinta sirta precision strike capability-ga iyo waliba layers of difaac oo aanu hadda ka hadlaynay shan lakabo difaaca ayay leedahay dhinacaas ayadaa hogaamisa dhinaca budgetka waxaa ka xoog badan ka tiro badan ka ciidan badan ka tababar wanaagsan marka la eego neto inay Iran Turkiga uu laba ka yahay sida warbixinta lagu sheegay markaas dowladda dalka Turkiga laftigiisu dowlad sahlan haba yaraatee ma aha marka la eego dhinaca militarigooda iyo sida ay markaas ay u shaqeeyaan kaalinta kale haddii aanu gudubno dhinaca taangiyada marka aynu fiirino iyo gaadiidka gaashaaman ee dagaalka halkan aad iyo aad ayaa loo kala fog yahay meelaha qaarkoodna waxaa muuqata in la isku dhow yahay Israel in principle waxay leedahay laba nooc oo taangiya ayay leedahay oo magaca koowaad wada wadaago oo McAfee la yiraahdo in badan aad maqasheen qazala aad in badan ku aragteen iyo goobo kala duwan oo dagaal Israel ay ka wado McAfee MK4 ka nooca la yiraahdo iyo kuwa cusub ee McAfee Barak la yiraahdo labadaas ayay leedahay waxayna aad iyo aad loogu dadaalay yiri ciidanka saaran ammaankooda sidii loo sugi lahaa sida oo kale advanced sensory ay leeyihiin oo network battlefield awareness oo markaas ciidamada ka gadaal dagaalamaya hortooda ka dagaalamaya iyo ciidanka meesha jooga iyo taangigu way isla socdaan oo wayna arkayaan kuwa taangigu ku jira wax agagaarkooda ka dhacaya wayna ismaqlayaan same time is all connected weeyaan way isla shaqeynayaan sidoo kale ciidamada haddaan sheegay taangiyadan ka feer dagaalamaya iyo joniska iyo markaas ciidanka iyo taangiyadan kulligood system ay ku wada shaqeynayaan oo isku xiran ayaa jira Turkiga laftigiisa ayaan dab yar shidaynin oo mar kale waxaynu arkaynaa dhinaca tirada markay noqoto Turkiga ayaa hogaaminaya Israel waxay haystaa taangiya laba nooc ah halkan waxaa arkaysaa Leopard 1 Leopard 2 ayaa arkaysaa M60 oo noocyo kala duwan ah M60 oo markaas upgrade lagu sameeyo oo upgrade ku waa maxay taangiyadii ayaa dib loo casriyeeyay oo waxa laga dhigay tayadoodii ayaa kor loo qaaday M60T ayay haystaan oo agab military oo aad iyo aad u xoog badan ayay xukuumaddaas haysataa marka dhinaca laga eego markaynu eegno verdictiga kama dambaysta ah ee markaas labadan xukuumadood ku saabsan marka aynu eegno dhinaca manpowerka taangiyada artilleriga navyga nuclear submarineka maraakiibta badda hoosteeda ku jirta tiradooda marka la eego drone productionka marka la eego Turkey ayaa hogaaminaysa waxaanoo dhan waxa ay hana qaadeen tan iyo intii Erdogan uu hadda dalkan uu ka talinayay ayaa lagu sheegay warbixintan Israel marka la eego dhinaca diyaaradaha dagaalka iyo xuraabinta sirta waxa ay Israel haysataa high end air power ayay leedahay oo dhinacaas aad iyo aad ay uga horeysaa dowladda dalka Turkiga waayahay markay noqoto dhinaca soo saaritaanka hubka qaybihiisa kala duwan iyo dhoofitaanka dowladda dalka Turkiga ayaa hoggaankaas haysato oo hogaaminaysa dhinaca nuclearka marka la eego Israel ayaa nuclear kala ma sheegato laakiin waxaa la aaminsan yahay 70 90 ilaa 110 ayaa la gaarsiiyaa oo nuclear warhead inay haysato overall markaad eegtid dhinaca dagaalka iyo agabka military ee labadan xukuumadood ay kala haystaan Turkiga tirada iyo soo saarka hubka iyo difaaciisu aad iyo aad ayay u harsareeyaa oo dhinacaas Turkiga ayaa hogaaminaya dhinaca teknolojiyadda edge-kana Israel ayaa hogaaminaysa labadooda yaa awood badan haddii ay degada iska dhigaan warbixintan waxaa lagu sheegay in aan markaa labadoodu hadday fooda isdaraan aan la qiyaasi karaynin cidda guulaysanaysa sababo awgeed markaa halkan ku jira oo ay ka mid tahay waa marka koowaad ee labadooduba waxaa jira qolo walba wax ay kaga fiican tahay qolada kale oo qolada kale ay ku baandhaynayso tusaale Israel waxay haysataa diyaaradda
F-35 oo latest generation ah turkigana weli diyaaradaas sooma gaarinoo aad ayuu u baadigoobayaa dhinaca hawada sare marka la eego ee diyaaraddaas iyo diyaaradaha kale F-15 F-35 F-16 dhinacaas iyo weliba dhinaca teknolojiyadda casriga Israa'iil baa hogaaminaysa dhinaca markay noqoto soo saaritaanka hubka tirada ciidanka dhaqaalaha ciidanka lagu bixiyo tayada ciidanka tirada ciidanka tababarka ciidanka waxaa la leeyahay Turki ayaa hogaaminaysa marka Turkigu waxay haystaan large military oo capable ah sophisticated ah isla mar ahaantaasna teknolojiyadii casriga ugu dambeysay ku shaqaynaya meesha dhinaca Israa'iilna ay haysato sharper technology edge ay leedahay marka hadday fooda isdaraan oo meel fagaaraa la isugu yimaado garo xuduud ka dhexeeya ma jiro iskuma dhowa laakiin laba wadanoo waxaa jirta labadooduba ay markaa ku baratamayaan waa u imaan doonaa marka haddii meel fagaaraa oo bannaana la isugu yimaado Israa'iil iyo Turkiga ayaa gacan saraynaysa ayaa leeyahay haddii ay noqoto duqeyn cirka ah ayadoon la isku soo dhowaanin maadaama xuduud aysan lahayna hawada sare Israa'iil ayaa ku xoog badan nuclear hadday noqoto Israa'iil ayaa ku xoog badan tirada ciidamada baaxadda dhulka ciidamada sida gaarka u tababaran taangiyada markay noqoto tiradooda Turkiga ayaa ku xoog badan marka labadoodu waa is og yihiin waxay rabaan marka sida xogta aynu ku hayno horena idinkugu sheegay inaysan labadoodu markaa isku duulinin sababtu waxay tahay Maraykanka ayay waxay gelinaysaa kala iyo mooyo dhexdeeda iyo artikalka 5 ee NATO inkastoo mar walbaba Maraykanku Israa'iil dhinaceedu xukuumaddu ay la safarayso haddana wuu fashilayaa sidaas awgeed in markaas labadooduba xukuumadood inay hawada isku marayaan hadallo aad iyo aad u qalafsan aan waxba la iskula harinin la isku cagajugleeyo waxaasaad arkay sidoo dhan waxaa lagu qarinayaa siyaasadda gudahooda lagu daminayaa oo shacabka Turkigu waxa uu aad iyo aad ugaga dhiidhinayaa oo inuu furka tuuro uu qarka u saaran yahay oo ay la daqnanayaan walaalaha Falastiiniyiinta Israa'iiliyiintuna waxay arkaan dowlad ayagoo kala ah meel istiraatiijiyad degan ka dad badan ka dhul weyn saameyn weyn dunida ku leh dhaqaalaheedu uu soo kobcayo isla mar ahaantaasna iyadoo 85% hubkeeda soo saarta oo Netanyahu ayaaba maalin weyn CNN ku lahaa in fact 3 maalmood ka hor ayay arkayaan oo ammaankooda gorgorin karta la tartami karta marka siyaasadahaas gudaha ka jira ayaa lagu baqtiinaya waxa kaloo ku soo haray gobolka waxa ka jira iyo xaaladdu meesha marayso Israa'iil rajo lagama qabo daawadayaal inay Turki ku duusho xuduudna ma lahan sababay ugu duushaan haatan ma jirto waa dowlad Turki oo NATO ka tirsan Israa'iilna waxa lagu eedeeyaa waxa la yiraahdaa weligeed lama aysan dagaalaminin dowlad awood military oo buuxda leh miskiin baa miska la fuuro lama maqli jirtay Lebanon iyo Syria iyo hadda burburtay meesha la yiraahdo Falastiin iyo wadamadaas oo la dagaalamtay laakiin dowlad weyn oo xoog leh oo ay inta fooda isdareen banaanka laga kala istaagay oo gowda la iska saaray oo fagaaro lagu kala baxay ma jirto marka in la tijaabinayo ayay og tahay waxay garanaysaa cawaaqibta ka imaan karta Turkiguna waa og yahay xukuumad very sophisticated power military leh haba yaraato dadkeedu ha yaraadaan laakiin saameyn military oo aan marnaba la dhayalsan karin garoon warbixintaanu ma ahan iyo xogtaan idinla wadaagayo Turki waa fiican iyo Israa'iil baa fiican iyo kanaan xigay ma ahan this is hard fact weeyaan labadoodu waxay ku kala fiican ku sheego saa adigu wacyigelin u heshid weeyaan laakiin meesha la isku arkayaan ku sheegaya maadaama Israa'iil rajaan laga qabinin sida khubaradu ay leeyihiin inay ku soo duusho Turkiga waxa ay Israa'iil ka shaqeynaysaa oo awoodda inay fawdo ka dhaliso dalka Syria oo malaayiin Syrian ah ay markaa ku soo qaxaan Turkiga
taas oo Erdogan iyo dadkiisa isku horkeenaysa markii dhaqaalihii ciriiri noqdo gurigii ciriiri noqdaan transportkii ciriiri noqdo malaayiin dada lagu soo fasaxo oo ammaankoodii iyo dhaqaalahoodiiba khalkhal la geliyo Spain maalin wixii ka dhacay waa arkayseen dad fara badan waxay lahaayeen Israa'iil ayaa ka dambaysa laakiin wax caddayn oo ilaa haatan Brit Somali TV ay haysa inay ka dambaysay ma jirto laakiin waxaan caddaynhaynaa in ay markaas ay soo dhaweeyeen in Pedro Sanchez dowladdiisa la fashilo oo kooxo fara badan waxaa jira aad iyo aad uga hadlay wasiirro Israa'iiliin ayaa ku jiray oo lahaa bal fiiriya waxa halkaa ka dhacay fowdada ka socota waad arkaysid inay soo dhaweynayaan laakiin Israa'iil directly inay ka dambaysay ma hayno Donald Trump asaga aad iyo aad buu u kacsan yahay maadaama dowladda dalka Spain ay u diiday hawadiisa inuu isticmaalo ay ka soo horjeensatay si bareer oo cad wixii Gaza ka dhacay ee caalamka uu ka qayliyay 20,000 oo ubad yar ah ayaa ciidamada Israa'iiliinta duqeynta ku dileen ayay leeyihiin qaramada midoobay tirakoobkii dambeeyay soo saaray kii 3 wiil la soo saarayna waxay sheegeen Israa'iil inay si gaar ah u bartilmaameysatay carruurta xasuuqan ay halkaa ka geysatay waxbayna warka ugu daalin xogta waa haysa Turkiga marka waa in Syria laga fashilaa oo xukuumadda Erdogan halkaa darsi loogaga dhigaa oo Syria aysan marnaba caga dhiganin arrintaas waxaa leeyahay dabkay saaran tahay gabankan yar la koolkoolinaya habaxa magaalo ka degaya magaalo madax ka degaya ee Ahmed al-Sharraax waxaa la leeyahay waa ukun funta si nin Masri carab oo dhigay ukun funta oo quruntay oo dhacday hadii it's not my words by the way it's the words of that Egyptian commentator ukuntaas hadii ay markaa la furo oo ay qaraxdo la qarxiyo waxa qurmuun ka soo baxay waa ogtiin marka isagoo qurmuun uma jeedo wuxuu jeedaa fowdo siyaasadeed iyo mid amni darro ayaa ka dhalan karta ayaa hadda halkaa jooga Syria marka Erdogan wuxuu u arkaa wadnihiisa qaar ka mid ah inaysan Syria fashilminin ay dhisanto dowlad ay noqoto saamaynta ugu badanna dowladda dalka Turkiga ay ku yeelato ammaan dhaqaale iyo siyaasad intaba maalin dhaweyd waa idinkii arkayay madaxweynaha Mareykanka uu lahaa Syria Erdogan baa igala shaqeeyay Syriana meel fog ayay ka timid waa tii dhawaan laga qaaday cunaqabatayntii caalamiga ahayd ee saarneyd haatan Syria waa la maalgashan karaa way la soo hagaajinayaa waxaasoo dhan Erdogan baa ka shaqeynaya oo xiniyihiisa miiska u saaray Bashar al-Assad lama fashil lahayn Erdogan haduusan alaxda ka jabin lahayn Erdogan wuxuu fiirshay danta dalkiisa iyo dadkiisa ayuu fiiriyey tan Syria tiisa dalkiisa ayuu ka hormariyay ninkaas waa hogaamiye la oran karaa siyaasadiisa ku raac ama ku diid laakiin danta dadkiisa ayuu dul hormariyay dabadeedna araxda ayuu ka jabshay Bashar al-Assad maxay taas u dhashay inuu Syria gacanta ku dhigo andalis meesha u socday arrintaas haddii lagu keeno Syria Turkiga ayaa leeyahay oo xaaladdu halkaas ay ka soo kululaato Turkiguna waxa uu waqooyiga Israa'iil kaga fashilaya kaga furaya qalalaaso aan la soo koobi karin ayaa leeyahay kood oo ah markaas Hezbollah iyo Labnaaniista dhinaca sagoon inuu tashkiiliyo oo markaas ciyaartu halkaa laga wada baandheeyo barbardhac ay noqoto saaxiibayaal waxaad daawanaysaan Brit Somali TV isbarbardhigga labadaas xukuumadood iyo meesha xaaladdu ay haatan marayso intaanu barnaamijkan kan xiga aynu ku kulmi doonaa haddii Allah uu dal yiraahdo waxaan idinkaga mahadcelinaynaa anagoo isku duubanay aniga shakhsi ahaanba markaas daawashadiina taageeradiina fikradihiina saliimka iyo hawad tusaalayntiina kaale iska arag nabadgelyo